الله ونحرسته وحاشل مقالة مقدشو قيرين حدين ايتيراني اللي كنت ماتي لما أنا قرني فائزو iyo Abbas oo wiilkoodii raga shaqeeray dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayaa aad ugu argagaxay dhibaatada ku timaatay familkan cusub Abbas iyo Faizo oo wiilkoodii raga shaqeeray shalay isha bilaadanka aad ay xun tahay waxa xasuusana Abbas iyo Faizo in ay la wadaagi jireen wax walba ku soo kordho labadooda ayna soo dhigi jireen baraha bulshada Abbas iyo Faizo waxay ahaayeen lamaane daayar oo ku nool magaalada Muqdisho lamaane aad isku jecel oo mar walba shacabka Soomaaliyeed ay taageeradooda ku xiran barta YouTube-ka, Facebook-ka iyo TikTok-ka la wadaagi jiray wax walba oo ku soo kordho familkooda dhanka kale waxay aad u sugayeen wiilkooda yaraa oo shalay ka saqiiray Allah u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dhanka kale waxa geerida ku timaatay wiilkooda uga tacsiyay dhammaan taageerayaasha ay ku lahaayeen bartooda YouTube-ka, Facebook-ka ama TikTok-ka Abbas iyo Faizo ayaa mar walba waxay ku rajaynayeen inay arkaan ilmahooda balse Allah ka ofsaday mid ka mid ah culimada caanka ah barka TikTok-ka ayaa wuxuu ka tacsiyay geerida ku timaatay Allah u naxariisto wiilkii Abbas kadibna wuxuu la wadaaday qiso yar السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحكا عدسانيا موقالكي إناد كارسيسو walaalkay Abbas yare Abbas oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibaatada ku soo gaartay adiga iyo family-gaaga iyo dumaashi waxa weeye badal khayr qaba Allah idin siiyo waxaan rabaa Abbas oo ina qisiyar kula wadaago adiga iyo bulshada ay daawanaysa waxaan garanayaa anigu oo si shakhsiyan aan u aqaana nin aad u wanaagsan oo ehlu khayra ehlu diina oo waxa weeye nin aad u fiican laakiin hadda nin dhaafay yani nin dhaafay ninku markuu afar xaas leeyahay oo afar gabdhood oo baariyaal Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku arsaaqo haddana waxa weeyaan afarta gabdhood aysan kala masayreynin aysan dagaalamaynin aysan isximineynin oo waxaan ku ri ma sha Allah dadku dhan markay arkeen yiraahdaan salaan intay u saaran yiraahdaan ninkaas waa rigeedii weeyaan la yiraahdo ayaan Ramadaankii 2021kii waxaan ku dhaxarkay masaajidka ninkaas oo ooynaya oo barooranaayo oo waxaan ku riday kaligiis meel cidla intuu darbi isku tiiriyay saas u helay uu ooynayaa ninku Ilaahay amarkiis marka waan yaabay waan naxay marka ninka maadaama aan aqaanay oo uu customer-kayga iyo macbiilkayga uu ahaa xaqiiqatan qofka marka taqaanid waxa weeyaan wax kasto gaaro waxaad ku dhiirinaysaa inaad tiraahdo maxaa kugu dhacay marka duruuf adag aad ku aragto waan weydiiyay waxaan ku dhahay xaaji see wuxuu jiraan wuxuu yiri Ilaahay subhanahu wa ta'ala afar xaas buu arsaaqay da'deedu waa 48 sano jir bishii waxaan mushaar u qaataa $12,000 fiirsaya hadalkayga adigana wuu ku socdaa Abbasna wuu ku socdaa qof kasto oo dhalinyaro ah wuu ku socdaa wuxuu yiri mushaarkayga waa $12,000 waxa weeyaan afar xaas baa Ilaahay isii wax walba waan haystaa nolosha laakiin se Ilaahay subhanahu wa ta'ala ubad ima siinin الكور يعني العق بان هيستا حاسس بدن بان ليهي لكن إلهي سبحانه وتعالى أبد إمسينين مركع عباس وإلهي سبحانه وتعالى أبد بوكسيي يعني ضدك قاربة ما أنت ولول كقبة ما دليس ميا ما دشميا وحاسب بروبلم كقبان وحد أركسا هوية إلهي سبحانه وتعالى كو أرزاقي طبعا عرورة مركاسا مدبا وحي كل هذا لقو سيقاد كان يكون عضي إنكار الله كورد وحد أركسا آبا إلهي كو أرزاقي ويلل يقبله مركاسا ويلشي هالقاضية وقبله الدرباحيين ووحا الله وحضون وسمينيا marka waxaad ogaataa Abbas nimca Ilaahay ku siiyay ilbila aadan baa kugu dhacday xaaskaaga oo xaamilo ah markaad banaanka keentay xaaskaaga oo waxa weeyaan uur la markaad banaanka keentay waxa weeyaan dad fara badan oo waxa jira waxa darbiyada ku ooyay oo aan ubad haysanin dad fara badan oo waxa jira iskaabul ah oo cilad ka xaqonay oo sariirta ka tahay oo wiilal leh oo gabdho leh dad fara badan oo waxa jira baabay oo xoolihii ka dhamaadeen si ubad raadinayeen marka Abbas oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan kaaga rajaynayaa badal khayr qaba adiga iyo dumaashina waxa weeyaan wad liibani doontaan laakiin barnaamijkan aad social media ka wadaan bal at least wax ka bedela muuqaalkana share gareey waa mahadsantiin Allah hadaan nahay bahna walaag qoyska waxaan ka tacsiyeynaa geeridii naxtin lahayd ee ku timaatay familka ila maana cusub halkaan naga daawanaysiin oo wanaag qoyska ala u barateen wararka ugu dambeeyay barnaamijka arrimaha bulshada fadlan subscribe maalintana ku wacnaato